galmudug markii ugu horeysa nimaadna maahin taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad markii ugu horeysa nimaadna maahin in badan baan nimidnay ceebadooda tagnay ruusamareyn 2 goor iyo 3 goor waxaan nimidnay Moojaan si fiican baan noo soo dhaweeyay imikana maanta si fiican baan noo soo dhaweeyay dadka reer galmudug iyo dadka reer Djibouti xiriir fiican baa ka dhaxeeya heshiiskan waa heshiiskii Djibouti lagu soo saxeexay si loo implementin lahaa waan ka qayb gal doonaa wixina la weydiisto hadday tahay qabaqabada shirka iyo hadday tahay la shabaab dagaalka la shabaab diyaar baan u nahay waxaan leenahay reer walaal AMISOM ku soo dhawaada gobolka Galgaduud magaalo madaxdiisa isla markaasna ah magaalo madaxda dawlad goboleedka Galmudug meeshaan sidii xildhibaan ku sheegay gudoomiyaha amni darro AMISOM loogu yeero ma ka jirin laakiin waxa aan rabnaa inaan nala daadiisaan ama nala kordhisaan waxa waaye dib u heshiisiinta dib loogu sameynayo reer Galmudug oo lagu khilaaf saarayo maamulkii Galmudug iyo maxaa la yiraahdaa dib u doorashadoodii labaad ee reer Galmudug inaad nagala qayb qaadatiin kaalintii muxuu ahaa AMISOM iyo kaalintii muxuu ahaa hiil walaal ee dhammaan aad nagala qayb qaadatiin nala daadiisiin geedi socodkaas dadka qabay inaan muxuu ahaa AMISOM looga baahnayn deegaankan ama muxuu ahaa dadka si kale ugu sheegayana waxaan rabnaa inaad muujino maanta adoo ku hadlayo magaca dadka deegaankan xildhibaanada laga soo doortaan nahay waxaan rabnaa inaan u sheegno ama indhooda ay ku arkaan inaan reer Galmudug aysan diidanayn ciidamada AMISOM isla markaas kaba si deeranay reer Djibouti oo hiil walaal ah inaysan diidanayn adinkana gurigiina baad timaadeen kalsooni ku jooga kalsooni ku soo toosa waajibkiina shaqada ku guta waxa sharaf noo ah maantay in AMISOM ay timaado Dhuusamareeb waxa sharaf noo ah inay ciidamada walaalaheena hiil walaal ee reer Djibouti inay yimaadaan halkan runtii waan soo dhaweynaynaa aad baa loogu faraxsan yahay imaanshihiina waxaa timaadeen gurigiinii waxaa timaadeen deegaankiinii awalna waad joogteen haddana waad timaadeen magaalo cusub baad timaadeen marka waan idinku soo dhaweynaynaa halkan waa meel la idinka jecel yahay waa meel la idinka soo dhaweynayo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaan runtii aad idinkaga mahad celinaynaa dhiigiina iyo dheecaankiina inaad u horeysaan sidii dadka Soomaaliyeed amni ay u heli lahaayeen sidii dadka Soomaaliyeed nabad ay u heli lahaayeen sidii horumar u sameyn lahaa dalkeena iyo dadkeena waan idinkaga mahad celinaynaa waan idin haynaa abaalkaas waan idin hayn doonaa insha Allah haddana waxaad timaadeen goob cusub iyo deegaan cusub oo la idinka sugaayay oo la idinkaga baahan yahay waxaan dareensanahay inay joogitaanka halkan ay joogaan ciidamadaas inay magaalada iyo deegaanka u soo jiidi karaan indha kaleeto iyo aragti kale iyo dad kale ku soo dhiiran kara inay yimaadaan marka aad baan ugu faraxsanahay runtii imaatinkiina waan idinku soo dhaweynaynaa magaaladiina iyo deegaankeena insha Allah maanta halkan magaalada Dhuusamareeb waxaa noogu yimid ciidamo ka socoto AMISOM oo horkacayo taliyaha koowaad ee AMISOM iyo saraakiil kale wuxuuna daba socday isbuuc ka hor halkan waxay ku yimaadeen sidoo kale booqashaasna waxay sidii uu kurgeli lahaayeen sida halkan u imaan lahaayeen ee uu qayb qaadan lahaayeen hanaanka geedi socodka dib u dhiska maamul goboleedka Galmudug sidoo kale waxaan ka hadalnay ayaga iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gedisan sida wada shaqeyn lahaayeen ayaan ka wada hadalnay waxaan rabnaa ciidamada AMISOM inay goobjoog ka noqdaan geedi socodka dib u heshiisiinta inay arkaan in halkan ay ka dhacdo doorasho xur oo xalaal ah marka waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadka reer Galmudug u baaqayaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ay amni tahay in la isku haleyn karo haddii Ilaahay mar dhow aan bilaabi doono dib u heshiisiinta sidoo kale maamul dhisida ama doorashooyinka mar dhow gali doono waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kaga qayb qaadano soo dhaweyntan anagoo matalayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad aad baan ugu faraxsanahay waxaan ognahay shaqooyinka ka soo qabteen ciidamada hiil walaal Hiiraan
iyo siday u taageereen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo dadka shacabkaaba annaguna intii oo kale aan rajaynayna inay nala qaban doonaan hadday tahay amniga gudaha gobolka iyo degmada shirka lagu qabanayo iyo hadday tahay amniga banaanka la dagaalanka shabaab laga xoreynayo degmooyinka ay haystaan aad baan waxaan ku rajaynaynaa inaan shaqo badan insha Allah nala qaban doonaan waxaan aad ugu soo dhaweynaynaa meeshaan deegaankan aan joogno hore u shaqeynay in ayaguna shaqada nala sii